بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت أو تاريخ تهاي شنت بيش الرجب كنا فربقولية تطبيق صدق كيشريقا وافقسنا شنت أغلبية طبعاً بيش أبريل أما بيش أفراد اللي بدأ كوني لحية طبعاً جدي ده هرمرين تاي هو ذاله وهي هل كان قوانين يسا شركة شرايد أو دارن همبليدا doorashadii ka dhacday wadanka jamhuuriyadda Djibouti oo lagu doortay mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii lagu hambalyeeyo siiradiisa wanaagsan iyo waxqabadka uu ka qabtay wadankiisa iyo guud ahaan gobolka iyo sharafta uu soo hooyay wadankiisa iyo gobolka iyo magaca ummadda Soomaaliyeed intaba waan ku hambalyeeynaa waan leenahay mar kale doorashada shanta sano lagu doortay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa asturo xilka sidii wax qabadkii wanaagsaneed hore u qabatayna Ilaahay mid ka sii badan ku waafajiyo raga hadalka waxaan uga baxayaa xubnaha kale gudida afayeenka gudiga Aqal Cali Migaag Muusaayin ku rajinay tabanka waxaanu halkan ka hambalyeeynaa sidii qiimaha iyo qaayaha lahayd doorashadii ka dhacday wadanka Djibouti loogu doortay mudane Ismaaciil Cumar Geelle inaanu anagoo gudidii hoodaala ee horumarinta aanu hambaliyo qaalaya oo kalgacal leh halkan uga dirno ayaanu isugu nimid waxaanu leenahay madaxweyne hambaliyo waxaad ku mutaysatay in mar afraad lagu doorto waxqabadkii dalka aad u qabatay iyo mantaqada geeskaba si wanaagsan ay daacadnimo ku jirto aad u dadaashay mudane aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa waxa kale oo hambalyeynaa ummadda reer Djibouti ee garatay maslaxadooda iyo wanaagooda iyo dantooda waxa ku jirtay madaxweynaha mar afraad u doortay iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxa kale oo taladayda ku dari lahaa qoladii kale ee macaaridka ahaayeen ee tartanka ku jirta iyaguna reer Djibouti hadii ay doorashadii dhacday inay madaxweynahooda si ay wax u wada qabsadaan ayaga laftoodu ku taageeraan oo hawsha kala shaqeeyaan wixii wax qabadka dalka taasoo dantoodu ku jirta iyo danta ummadda reer Djibouti intaasina waa talo aanu soo jeedinayno xisbiga isagu taageeray markii horeeyayna waanu hambalyeeynaa sida iyo maalin wanaagsan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم aniga ku hadlaya magacayga magaca gudida horumarinta hoodaale iyo magaca bulshada aanu ka wakiilka nahay guud iyo dibadba waxaanu halkan hambaliyo uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle guusha uu ka soo hooyay tartankii doorashada ee ka dhacay dalkiisa isagoo oo guushaasi ku kasbaday waxqabadka iyo horumarka uu gaarsiiyay dalkiisa waxaanu leenahay madaxweyne Ilaahay ha kugu asturo hana ku dhib yareeyo xilka culus ee lagu doortay waxaanu ka rajaynaynaa in waxqabadkii iyo horumarkii bulshadaada aad u haysay aad halka ka sii wado ummadda iyo shacbiga reer Djiboutina waxaanu ku amaanaynaa kalsoonida iyo daacadnimada ay ugu codeeyeen ee ay ku doorteen madaxweynahooda waxaanu leenahay taageerada aad u muujiseen la garab taagnaada horumarku wuxuu dhib yaraadaa marka ay iskaashadaan shacbiga iyo xukuumadoodu dhammaan ummadda reer Djiboutina waanu hambalyeeynaa waxaanu leenahay guusha uu gaaray madaxweynuhu iyo intiinii u codeysay iyo intiinii kalaba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida aad u xafideen nabadgelyadiinii iyo amnigiinii ee si nabadgelyo aad ugu dhamaysateen doorashadiinii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن يلحي طبعا هذا هالجدي هذا على هالكن واحد كان بلينا مدحوينها جمهورية Djibouti إسماعيل عمر Geelle guushu ka soo hooyay doorashadii bisha 8 ka dhacday magaalada Djibouti wadanka Djibouti madaxweynaha waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeeynaa waxqabadkiisa iyo horumarku gaarsiiyay wadankiisa لأن waxaan xasuus lahay maalintii uu qabtay xilka halkii Djibouti marisay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba waxaan u arkaa inuu god ka soo saaray
ummadda reer Jabuutina waxaan xasuusinayaa halku ka bilaabay inay xasuustaan saay xasuustaan markay imika ay doorteen waxaan filayaa inay xasuusan yihiin halku ka bilaabay halku maanta marinayo iyo halku mintaqada kaga jiro waan u mahadnaqaynaa ilaahay xilka kugu asturo ummadda reer Jabuuti garatay danteedana ilaahay wanaaga u tusay ha u sii wado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.